محمد كيلي الصباح حسن وحلاليه حسن الصباح قدومي سودو بالكورن شركة كسر المقدسية شركة مانتي قالوا كل واقعنا في الشلمي runtii shirki maanta waa fashilmay eedisna waxaa qaadanaya dowladda federaalka ay ka shaqeynaysay dhanka kale oo macnaha ma rabin inuu shirkan qabsoomo ma rabin in dalka xal waara laga gaaro taasaa keentay maanta in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu dib ugu laabto shirkan uu fashilmo eedda shirka waxaa qaadanaya dambigeeda iyo fashilkii ku yimiday shirka ee Soomaali weyn ee wada sugaysay dowladda federaalka xilligan oo kale markii la fiiriyo madaxweynaadkii hore عارض كوحنا أركيني إن الدرجين التاجنايين إن بنا بحيين إن الهاي محمد وصبح لكن سمعت وحاسب إنه متشينا مركا الحين حسن وسكسي تشوي كراسونا هو سؤال في عنه وحنكون شيء ورتوض كان عد جوي كرتو ومجرته محمد كيلي الصباح حسن وحلاليه حسن الصباح هذا لك وحلا احترامية مانديت كمدحونا وحا قولي من مالمو إلا شرعي تونك مي مدحونا وحوستا مانديت marka madashu waxay ixtiraamaysaa waqti xaleedka u harsan madaxweynaha laakiin ninna sifa sharci darro ah kuma joogi karo fil Soomaaliya wasaarihii iyo madaxweynihii iyo gudoomiye baarlamaanka maadaama isku aragti yihiin mucaaradku xagee ka soo galaya aragtidooda muhiim ah waxaa muhiim ah mandatekii loo dhaariyay 4 sano ahaa